maanta waxaan keenay daawo yar oo dhiig joojin ah. Anaga waxaan joognaa Aadan Yabaal. daawada aad noo keenteen runtii aad iyo aad ay noo dhiirigelinaysaa. Quraadka degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la soo gaarsiiyay daawo aad u badan daawada gargaarka degdegga ah ee looga baahan yahay xilliga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta xaqu-dirirka deegaanka ee Macuusleydu marka ay dagaalgalayaan ay aadka ugu baahi badan yihiin. waxaana soo gaarsiiyay isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Xasan Barqadle iyo dhalinyaro kale oo la socota oo ka socotay gobolka Hiiraan kuwa oo garab istaag u muujiyay ciidamada xaqu-dirirka ah ee dagaalka ku jira kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab. waxaa halkan ka gudoomay qaar ka mid ah hogaamiyaasha Macuusleyda halkan ku sugan oo ugu horeeyo una hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas ahaana gudoomiyihii ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cabdi Xiish oo hadda ah hogaamiye sare oo ka tirsan hogaamiyaasha ciidamada xaqu-dirirka ah ee Macuusleyda. waxa uuna uga mahadceliyay agaasimaha iyo tiimkiisa sida ay garab istaag ugu muujiyeen ciidamada xaqu-dirirka ah iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay ka soo baxeen kaalintooda. Ilaaha mahadis kale mar walba meel walba waxaan soo gaarnay Aadan Yabaal halkaas oo ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka oo ka mid ah deegaanada dowladda Hirshabeelle laga difaacayo cadowga ummadda Soomaaliyeed. annaga waxaan nahay ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka. doorkeenu waa doorkii caafimaadka iyo wax walba oo aan tari karno haddaan dhalinyaro nahay. maanta waxaan keenay daawo yar oo dhiig joojin ah. hadduu Ilaahay raali ka noqdana waxaan ka fikiraynaa annagoo kaashanayna madaxdeena in aan difaacyada iyo meel walba ay joogaan ugu dadaalno una dabiibno xilli walba iyo xaalad walbana garab waxa u noqon ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga walow ay jiraan saraakiil caafimaad oo ciidamada xoogga la shaqeeyo oo si dhow noola shaqeeyo naftigeena annagana garaamkeena iyo waxaan tari karno aan taraynaa. waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo nafteeda iyo maalkeeda inay hurto dalkii deegaankana ku difaacda rabto. alxamdulillaah calaa kulli xaal mar walba ilaaha mahad iska leh. qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo maqaam leh nuucoo noqdaba ha noqdee ka wasaarad ahaan iyo ka xasan ahaanba kula dardaarmaa dalkan iyo dadka ama dagaal uu ku jiraa. qof walbaba wuxuu dadkan iyo dalkan uu tari karo oo uga qayb qaadan karo inuu uga qayb qaato doorkeenan annaga inaan laba laabno insha Allah. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo haddaba way jiraan dhalinyaro caafimaad oo la shaqeyso saraakiisha xoogga iyo kuwa deegaankaba inaan sii xoojino oo aan dadaaladayna sii labaadno insha Allah. aad idinka mahadcelinayna adinka iyo guud ahaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaankaba. sidoo kale guud ahaan ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga ka wasaarad ahaan deegaanada hoos yimaada hadday Aadan Yabaal tahay hadday Mooqori tahay hadday Maxaas tahay hadday Buuloburta tahay dhammaan wax ka shaqeeya isbitaallo free ah xarumo oo emergency-yada looga jawaabayo oo naftigooda free ah ee dowladda maalgelisay. waxaan filayaa insha Allah inuu dagaalkii hore dagaalkan markii xag caafimaad la yiraahdo annagoo kaashanayna dowladdeena hadday mid dhax tahay haddii mid state tahayba inay noo dhammaystiran tahay. wixii dadaal iyo baahina ma dhamaatee waan dadaali doonaa insha Allah. dhammaan waa mahadsantihiin. si gaar ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Xasan Barqadle iyo tiimkiisa oo u mahadcelinaynaa. annaga waxaan joognaa Aadan Yabaal. daawada aad noo keenteen runtii aad iyo aad ay noo dhiirigelinaysaa. sababtu tahay haddee qofkii dhintay waaba shahiidiyo haddii Ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyay laakiin kii dhaawacmo inuu daawo helaha aad ay muhiim u tahay. kaalmo weyn iyo wax weyn ayay noogu fadhisaa xaqiiqiyan. waan idiga mahadcelinaynaa waan idigu bogaadinaynaa qof walba oo reer Hiiraan ama Soomaaliyeedna waxa looga baahan yahay wax walba oo tari karo inuu taro. wax walba oo ciidanka la soo garab istaagi karana uu la soo garab istaago. annagu halkan aan hadda aan taagannahay daawadan un baa naga dhinneed waxa kaloo dhan waa noo diyaarsanaayeen. wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye inaan cadowga aan gacan saarno oo aan la jihaadno oo aan dalka aan ka xurayno guud ahaan. dabcan haddii yani maaragtay ay ciidankii deegaanka ay diyaar yihiin
ciidankii xoogga dalka uu diyaar yahay ciidankii nabad sugidda uu diyaar yahay dhammaan la isku duuban yahay oo hal far la yahay waxaan filayaa inayna khawaarijtu ayna sii joogi doonin cali dheere iyo kuwa la halmaalana cabaadkeeda oo badan doono sida roobkaas u da'aana in cirka looga da'aan rajaynaya hadduu ilaahay yiraahdo dhulkana annaga ka geli doono sida horey baan ugu geli jirnay insha Allah dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa sanadkan aan ku guda jirno waqti kooban inay ka harsan tahay hadduu ilaahay raalli ka dhigo ayaga dhanba inaan ku sheekaysan doono anagoo caafimaad qabno in la sheegi doono oo urur noocaas oo dhibaato badan oo dadka masaajidda ku laayo oo musaafarka wadada u galo oo qaraxiyo yani ummadda masaakiinta hooyooyinka iyo carruurta la eegto oo masaakiinta ka naxiyo ayaa jiri jiray in la yiraahdo waa lagu sheekaystaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo dalku wuxuu ku jiraa dib u xurayn oo ku jiraa madaxweynihii jiida joogo saraakiishii ciidamada ugu sarreeya habeenii maalin dabaysha iyo yani maxaa tiraahdaa kuleelka nala qaybsanayo wax hadde maxaa tiraahdaa walwala iyo wax qurbaa iyo waxa anagu aan qabnana malahan farxadaan dareemaynaa dhiirigelinta dhalinyaradaana muhiimay noo tahay cid walba oo dadkan wax tartana runtii abaalaan ugu haynaa qof walbana wuxuu taray qalbigaan ka ogsoonahay hadduu ilaahay raalli ka dhigo saxaafadda naftirkeedu aad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.